ha ilaabin inaad subscribe saarto channelka sidoo kale ha ilaabin inaad gambaleelka furato si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee hela muuqaaladeena cusub. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. daawadayaal barnaamijkeena waxaan ku soo qaadan doonaa 10 wadan ee kaalmaha hore ka soo galay faqriga ee dunida ka taagan gaar ahaan qaaradda Afrika. 10 dal ee ugu faqrisan anagoo ka eegayno dakhliga soo gala sanadii qofka shakhsiga ah ama shakhsiyaadka ku sugan wadamadaasi. Nambarka koowaad waxaa dul saaran Congo. celcelis ahaan shakhsigii sanadii wuxuu helaa $394. lambarka labaad waxaa dul saaran Zimbabwe. celcelis ahaan qofka shakhsiga ku nool wadanka Zimbabwe sanadii wuxuu helaa $589. lambarka saddexaad waa dalkeeni hooyo, waa dalkan jecelnahay, dalka Soomaaliya. celcelis ahaan shakhsi kasta sanadii wuxuu helaa $600. lambarka afraad waa dalka Burundi. celcelis ahaan shakhsi walba sanadii wuxuu helaa $648. lambarka shanaad waa Liberia. celcelis ahaan shakhsi walba sanadii wuxuu helaa $716. lambarka lixaad waa Eritrea. celcelis ahaan shakhsi walba sanadii wuxuu helaa $792. lambarka toddobaad waa Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. celcelis ahaan shakhsi kasta sanadii wuxuu helaa $827. lambarka sideedaad waxaa dul saaran Niger, dalka la yiraahdo ee ka tirsan qaaradda Afrika. asigana shakhsi walba celcelis ahaan sanadii wuxuu helaa $853. lambarka sagaalaad waxaa dul saaran ama dul taagan dalka Malawi. celcelis ahaan shakhsi walba sanadii wuxuu helaa $893. lambarka tobanaad ee ugu dambeeya ee aan barnaamijka ku soo gunaanudayno waa dalka Madagascar. shakhsi kasta celcelis ahaan sanadii wuxuu helaa $972.